inaad wax jeclaato waa mid ka mid ah dareenada ugu sareeya ee la dareemo dunida. marka qaar qof buu xiriir jecel kaala dhaxayn karaa isla qofkii ku jeclaa ayaa haddana si lama filaan ah kaaga tagi kara. dabcan dareenkaasi in lagaa tago waa mid si weyn kuu dhaawacaya, waayo waxaad ogeyd iyada uu qofkaasi si dhaba kuu jecel yahay. markaas kadib waxaa laga yaabaa inaad mar walba isweydiiso sababta uu qofkaasi kaaga tegay. iyo ogolow inaan kula wadaago 7 waxyaabood oo qofka ku jecel ku kalifta inuu kaa tago. fiiro gaar ah muuqaalkan waxaan u soo gudbinaynaa cilmi ahaan dadka inay u bartaan, kama dhigna inaan soo jeedinayno haddii aad calaamadahan aragto inaad xiriirka baabi'iso. beddelkeed waxaan ku talinaynaa inaad raadiso waddo kale oo aad wax ku badbaadinayso, sida inaad la hadasho qofka xiriirka kaala dhexeeyo ama aad la kaashato qof wax xalin kara. inaysan dareemin wax ixtiraam ah. xiriir kasta waxa aasaas u ah is-ixtiraamid. waxaa laga yaabaa qof inaad isjeceshihiin, laakiin haddii uusan kaa helin ixtiraamka uu mudnaa, u bada inaad isweysaan. 2 inuu dareemo qofka inuu emotion ahaan ama dareen ahaan aadan daacad u ahayn. tani waxay tahay inuu qofka lamaanahaaga aadan u muujin waxa aad tabanayso ama aad dareemayso, isagana ama iyadana aadan weydiin dareenkiisa ama dareenkaaga. 3 inaysan jirin wax physical intimacy ah. tani waxay tahay inaadan diyaar u ahayn inaad wax taabasho jireed la wadaagto lamaanahaaga, hadday tahay in gogol la wadaago ama si kale inaad u falgashaan, adigoon sheegin sababta kugu kalifaysa diidmada. 4 inaad qofka lamaanahaaga cuqdad u qaado beddelkii aad iska cafin lahayd khilaafyo hore idin dhex maray awgeed. marka uu lamaanahaaga dareemo inaad cuqdad u hayso oo aadan cafin waxay idin dhex mareen, way adag tahay inuu niyad wanaagsan kugula sii joogo. 5 inaad qofka lamaanahaaga ah aad yaraysato dadaalkiisa ama wanaagga uu kuu sameynayo. dabcan labada lamaan waxay isku leeyihiin xuquuq, waxaana habboon inuusan midba kan kale keliya u arkin waajib saaran, beddelkeed la iskaga mahadiyo wanaagga la isku sameynayo. haddii mid uu dareemo inaan dadaalkiisa iyo wanaaggiisa laga mahdin ama la fududaysanayo, waxay u badan tahay inuusan sii wadin. 6 inaad keliya noqoto qof wax qaadanaya laakiin aadan ahayn mid wax bixinaya. tani waxay tahay inaad wax walba ka sugto lamaanahaaga, balse adiga aadan diyaar u ahayn inaad bixiso wax beddel ah, adigoo iska dhaadhicinaya inay tahay waajib laga rabo qofka kale. 7 inaad qofka lamaanahaaga ah si granted ah u qaadato. tani waxay tahay in qofka xiriirka kaala dhaxeeyo inaad iska dhaadhiciso inuusan weligiis kaa tegayn, weligiis beddelayn, wax walbana aad sidaa jeceshahay ku soconayaan ama ay ahaan doonaan. waxaan filayaa in muuqaalkan aad wax badan ka faa'iiday. nagula wadaag fikirkaaga qaybta kommentiga. sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mawduuca xiga. mahadsanid.